doorashooyinka maadaama bayaano lagu heshiiyey oo jiraan macnaha wax badan baa ay kala duwan yihiin sidoo kale wariye Axmed Cali oo ka tirsan wariyaasha telefishinka iyo raadiyaha Itoobiya oo halkaasi goobjoog u ahaa ayaa waxa halkaasi kula kulmay qaar ka tirsan dadweynaha ku nool magaalada Goday waxna ka weydiiyay balse warkaan codkooda sida ay u dhiibteen iyo doorashadani maanta ka dhacday ee deegaanka dawladda Soomaalida magacay waa Bishaar Budul qabalaygeed ka tirsan waxaan ka tirsanay qabalahan labaad bal maxaad u timid goobtan waxaan u imid inaan saaka si xor ah uga codeeyo doorashada 2002 15 Gimbood maalin Axada annagoo mid baan sugeynay inaan fursadayada si xor ah saaka uga faa'iideysano doornana cidii horumarka nabadgelyada maamulka suuban wax ka bedel lahayd sanadaha 5 sano soo socota jawiga doorashada bal maanta nooga waran magaalada Goday gaar ahaan xaafadda labaad jawiga doorashada maanta kulli qiyaas aan ka bixin karaan jirin baa macnaha sida u socoto wanaageeda sida xorta wax loo dooranhayo sida ma taqaanay qof walba isagoo ku kalsoon qofka uu dooranhayo oo u dooranhayo macnaha cidii horumarkiisa iyo ismaamulkiisa ma taqaanay nabadgelyadiisa iyo wax ka bedel lahayd istiraatiijiyada 5 sano soo socota daawada ragal yiraahdo xaafadeed ku noosha xaafadda labaad maanta maxaad goobtan u timid doorashada inaan codkayga dhibto ay jawiga doorashada ka waran balse qaabka nidaamku u socdo doorashada si fiican bay u dhacaysaa oo aan arqalad lahayn cid walbana codkeeda dhibanaysa si aan qasab iyo dhibaato toona lahayn bal mar kale haddii aan dib idinku soo celiyay magaalada Jigjiga dadka magaalada Jigjiga ayaa waxa ay aad maanta codkooda ugu dhibanayeen aroornimadii laga bilaabo ilaa waqtigii galabnimada doorashadani guud ee markii afraad ka dhacaysa ama ka dhacday dalkani Itoobiya haddaba waa kuwan qaar ka tirsan dadweynaha oo fikrado ka dhibanayay doorashadani sida ay u dhacday iyo sida ay u arkaan doorashadan codkayga dhiibtay waxaan u arkaa doorasho aad iyo aad u wanaagsan nabadgelyo ah dan annaga noo ah dawladnimo hadda aanu rajaynayno wanaagsan oo aan ku qabownana noo horseedi doonto xaaji maxamed waxaad ka mid tahay odayaasha caanka ah ee degan magaalada Jigjiga bal iga waran doorashooyinkii hore iyo tan maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore tallaaye iyo reer hebelay baan wax ku dooranayna ina hebel ii dooran ku dooranayna wiilkan annagu kuugu riday adna iigu rid baan ku dooranayna maanta waad arkaysaa calaamadayda labaadna waa nabadgelyo taayada saddexaadna waa horumar taayada afraadna waa walaalnimo taayada shanaadna waa guul aan doorashada noogu dhammaato aamina cabdi muuse la yidhaa walaal aamina bal iga waran codkii ayaa dhiibatay waxaad ka soo baxday goobtii cod bixinta bal iga waran doorashadan say u aragtaa doorashadan si sax aan u arkaa oo xaq ah oo cadaalad ah oo wanaagsan oo midnimo ku jirto doorashadan waa tii afraad ee qaran ee laga qabanqaabiyo dalka iyo deegaankaba markaa doorashooyinkii hore ma ka qayb gashay haa waan ka qayb galay maxay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore iyo tani waxay ku kala duwan yihiin nabadgelyo wanaag qabiil la'aan xornimo codka doontaad dhiibanaysaa aan ku jirin maxaan ku dhahay caburis ayo maxaan ku dhahdaayay xoog iyo waxa ka doonato ka fallag ba dhiibanaysaa daawadayaal barnaamijkii gaarka ee ku soo qaadanay geed socodka doorashada maanta ka dhacday deegaanka dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan dalkan Itoobiya gaar ahaan fikradii ay dadku ay dhiibteen markii ay codkooda ay dhiibteen intaas ayaan ku soo gabagabeynaysaa siyo nabadgelyo Rafaad baa la kulantaa
ربطان كدرته رأيك ساعة